qaar ka dambe qofka naftu ka soo baxda lataa'ifka waxa kamida culimada aad uga fiirsaday baxthi baan arkay inuu leeyahay sababta halka ay uga soo baxayso waxa weeye qofku marka uu arko malaa'igti haddii labada ay dinu fayoobaadaan uu carari lahaa sakaraadka malaa'igta oo arkay iyo xanuunka sakaraadka faybu oran lahaa qofku maba la qaban kareenba labada adin buu ilaahay ka jabiyay subhanahu wa ta'ala oo nabi maxamed ba markuu malakul jibriil arkay dawakii gariiray xagga khadiija u cararay malagii wanaagsanaa buu ka carari gaaray nabigu maxaad u malaynaysaa malagii cadaabka meesha marayana halku ka carari lahaayo cagaha buu ilaahay isugu maray ninka doonaysa inaanu ka firdhan labada adin baad ka toogatay oo ka jabinaysa waltafati saaqu bisaaq waxaad arkaysaa bari aanu fiirsanayeen inay naftu ka baxayso ilaa jilibkay ka soo booday iyadoo dubaaxinaysa saa u gariiraysa haddana kadh bay tiri ilaa halkaa misigta iyadoo saa u socoto gariiraysa haddana ilaa garabka marafraadkiina khaakh buu yidhi qofku oo afkay ka booday macnaha waxaad arkaysaa iyadoo dubaaxinayso kolba qayb soo dhaafto haddaynu aahaartii axaadiida rasuulka u noqono sala allahu calayhi wasalam nabiga iyo asxaabtiisa sakaraadku saas uu soo marayay waxaa xusid mudan sakaraadku qofka uu ku kululaado macnaheedu inuu xun yahay maaha waa sida xanuunka oo kale ilmaha yar buu ku dhacayaa nebigu ku dhacayaa ka xun buu ku dhacayaa laakiin ciddii xunna ciqaab buu yahay sakaraadku ciddii wanaagsanna dembi dhaaf iyo rafcu darajaad buu yahay oo ilaahay darajooyinku kor ugu qaadaya وإلا هذا تعالى أوراني المها يرمي هذا الكين مركي نفته كسي بحيس إن يروى ويها رسول صلى الله عليه وسلم أي صاد الفريست والنفس تقعقع يدا نفط صاو كلا قريس قرع ذا وهي نبي جو هين وسكرات كلمة يروى كلمة صلى الله عليه وسلم وحين أكسون هي أبو بكر الصديق أي سكرات وقفت سواء ويل درم بين أنت سجسيد ده هذا عايش oo dul fadhida arkaysa Abu Bakar oo dhimanaya nabiga dhintayna way u soo joogtay nin shaacira ay gabagiisi akhriday sidaa hawran in buurin soo meeraado wuxuu waxa tidaahdaa wajaat sakratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahi ayada akhribu sakaraadki baa hay insaanku ka warwareegi jir insaanku in badan dalika ma kunta minhu tahi ilaahay wuxuu leeyahay maanta sakaraadki baa kugu habsaday in badan waad ka cararaysaa xubani aadamku ka cararay geerida muxuu ka firdhaday muxuu dawo ka cunay muxuu qaliin ka galay dicaa wala yiraahdo magaaladan dadka jooga naftu way ka wada baxaysaa hal nafar kuma hareen dalika ma kunta minhu tahi nin walba meelay la gaadhaba nafi orod bay kugu aamintaa soomaan maqalna fi orod ayay kugu aamintaa hada woogiyo qofku inaan laga haray oo dhimanayo ilaahay wuxuu leeyahay sakaraadkiida ku yimid dalika ma kunta minhu tahi ay tafir waqad ka carijta maanta ku haybu ilaahay leeyahay adoonka marka nafta laga qaaday آيات آخرين آيات صايم كهيسته حالة النزع بان كتراي بيت كها آخرين آيات آخر تساي دليله عمرو بن العاص رضي الله عنه أصحابتي وحكم إذا مجاهدين تيجي سياشها ونكي مصر حري وحورن تروح عن شعلان لها من عقل بدن وفريدة وبهل كاس سكرات كأه يحنون كجيرده بالمر نوقش حكاية هرو أركي واي isagiiba markaa sakaraadkii ku yimi inamadiisii mid kamid oo maqaaladiisa xusuusnaa ayaa wuxuu aabbo waan arkayaa inaad sii socotood ka shubayso in badanna waxaad oran jirtay waxaan jeclaan lahaa cid noo sheegta sakaraadka iyo nooca uu yahay iyo sawirkiisa bal adigu nooga waran waa kuna waa lagu hayaa ilaa rag isfahmayo iska diyaara waa iska diyaar inaan kula lama yaabsana geerida odayguna lama yaabsana duruusun baa la kala qaadanaya horta kuma sheegi kara buu waxay haysta kuma sifayn karo laakiin in yaroo kamid ah hadaan ku sheego waxaan dareemayaa buu cawsajka geedka la yiraahdo cawsajku garan waagu weegyahay ama dhirtan qodaxda iyo xajiinta iyo finan kale weey geedka cawsajka leh ee qodaxda badan ayaad moodaa buu qaaxadayda in lagu xaduurayo oo saa lagu xoqayo waxaad moodaa buu ciriiriga ay haysta naftaydu inay irbad daloolkeed la marinayo labadayda dibnood waxaad moodaa buu dirqi baan kugula hadlayaa inay buura saaran yihiin buura waxaad moodaa buu cirkii iyo dhulkii oo la isa soo qabadsiiyay inaan dhexdooda ku jiro waa caburka iyo ciriiriga haysta weey sida daraadeed ba culayskaas markuu aad ugu farabato qofka xaaladda ay naftu ka sii baxayso waxa laga yaabaa inuu banta keeno oo saxarada iyo kaadida uu sii daayay raacaan nafta baxaysa waxa la yideen in cunaha la qabtay maxay ahayd
dhanun wax ka sii daa ilaa cuni baa la hayaaye oo way ka sii baxaysaaye sidaasuu ku sifeeyey camru bnu caas aniga xaaladda maanta haysataa buuli intaan kaaga sheegi karaya waa inta culayska iyo cadaadiska iyo diiqadda iyo waxa laygu xurbinayo sawirkaasaan leeyahay maxaad u malaynaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa fii xaalati nasci wuu sii dhimanayaa caaisha ay noo sifaysa waxay ka warrantay sakaraadku muuqaalku lahaa markaasaa waxay tihi xanuunkii baa nebiga ku batay aad buu ugu batay kulaylka ka baxayaan yaabay waa kii lahaa waxaa la i xanuujinayaa laba qof oo bani aadam oo ragga ah culayska la saaro ayaa aniga laysugu keegayay cabdillahi ibn mascuud wuxuu lahaa dee waa runoo laba ajri baad leedahay haa buuri wuu jiraa marka waxay tihi nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u baaxaadegayay ayaa halkaasaa weel baan usoo dhigayo markaasuu saa u darayaa weelka ah intuu maradaa qooyaaba wejiga saa ugu qabanaya ina lilmowt laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat wuu ashahaadanayaa si aan fursaddu u seegin nebiga calayhi salaatu wasalaam ma seegaysaba wejigiisana wuu qoynayaa sidaa daraaddeed bay leedahay qofka ayay leeyihin culimmadu qofka in loogu dadaalo qoyaanka iyo biyaha waa habboon tahay riwaayinka qaarkoodna waxay sheegayaan inuu odhanayo kolba qarbad igu shuba biyo qarbad markaasaa qarbad weyn oo biyaa nabiga lagu shubayaa haddana mar labaad baa lagu shubayaa haddana mar saddexaad baa lagu shubayaa sakaraadka haya nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu sidaa ugu baaxaadegayay ayaa waxaa maqlay isagoo leh fi rafiiqi alaclaa caalamka kore gacantiisiisaa u taagaya baa nabiga soo dhacday calayhi salaatu wasalaam marka sakaraadka nebi maxamed haye calayhi salaatu wasalaam ee sidaa u cuslaa maxaad u malaynaysaa bashar iyo bani aadam kale waxay ku soo ururayaa warku itaalka uu leeyahay insaanka noocaasa ayaa ilaahay diiday oo ilaahay ku gacan saydhay oo ilaahay ka gaaloobay marka waxaa laynoogu sheegayaa in qalbigeennu debco oo waxaynu u waalanay iyo qafladda aynu ku jirno kolba caalamka aakhira waa inaynu saa u eegno waxaana aayaadee sawirka bixinaya waxa weeye xaggan unbaad eegaysaa bidixdii adduunyadae bal dhinacan midigta aakhira iyo waxa kaa dambeeya iyo waxa lama huraanka ana eeg si qalbigeennu u debco allah inagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu